بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندك استيال ومركلة برنامج كيني شاكو غابان صاحبنا قيمها قدرين تنقمضنو qaybtii 16aad ee sheekadii la magac baxday alla maxaan cadowgii jacaylkayga gacantaydii ku barbaashay ayaa waxa inoo joogtay ooyintan haddii aad ka fikir weyso wax ka dambeyn doono in ooyin kale ay ku sii dambeyn doonto musiibadan halkeediga timid biliisiga kortag oo weli miyaad rabtaa inaad ii sii handado nolosheeda inta ka dhiman inaan aniga sii ooyo iga kortag saalim oo ku baryaaya iga kortag bax hadal dambe ha ii soo celin aniga waan kaa tagay waatan qaybtii 17aad ee sheekada oo aanu halkaasi ka sii ambaqaadno aniga nolosheeda sida ay u kurbaysan tahay aniga nolosheeda waxaan waa inaan ka salgaaraa waxaan waa hubal waxaan u baahanahay inaan ka salgaaro waxaan wacaayo waa inaan asiga waxaa markaan waa inaan asiga wacaa telefonkiisa uu dhacayaa telefonkiisa mana qabanayo waa daruuri inaad iga qabato telefonka qabo telefonkaana noloshayda ilhaan ayaa isoo weecaysa maanta maalin farxadeed ayay ay tahay run ahaantii maalintan jacaylka u bandhigtay ilaa iyo iminka farxadda iyo jacaylka waa uu isii ziyaadayaa waa inaan ka qabtaa teelka weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan uga qabtaa hello xabiibtii hanad sidee tahay noloshaydii aniga waan kuu fiicanahay adiga sidee tahay aniga aad baan u wacanahay waan fiicanahay run ahaantii xabiibtii maxaa kugu dhacay codkaada waa si kale sidee wax u jiraan guriga miyaa problem kaa haystaa maya wax problem ma haysto waan fiicanahay ayaan ku dhahay aad ayaan u fiicanahay waan ku baryayaa waxba ha iga qarin codkaada waxyaabo kala duwan ayaan ka dareemayaa sidii hore iima tihid maxaa kugu dhacay codka fasiix iga dhig aaway farxaddii aynu abuurnay aaway ballantii aniga adi aynu kala galnay maxaa dhacay noloshaydii dhib badana farxad ayuu leeyahay asiga aniga nolosheeda halkan ayay ku silcaysaa aniga waan fiicanahay hanad adigu sidee tahay sidaani kuma fiicnid waan ku baryayaa ha isla hadlin xaqiiqada jirta ii sheeg anigu gacliyahaada ayaan ahay wax walbana waan kula qaban karaa xabiibtii waxba ha iga qarin waan ku baryayaa xaqiiqada dhabta ay jirta ii sheeg sideen wax ugu sheegaa waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo haddii aan ku weydiiyo si dhab ah miyaad ii jawaabaysaa su'aashaas haa xabiibtii si dhab ah ayaan kaaga jawaabayaa iweydii dhaqsi noloshayda ma waxaa jira qof adiga ku eg ii sheeg mise qof adiga ku eg ayaa kula dhashay ma jiraan qof aniga ii eg ama qof aniga ila dhashay ma jirto run ii sheeg waan ku baryayaa aniga been miyaad iga baratay noloshaydii ma jiro qof walaalo aan nahay oo aniga ii eg waan ku baryayaa i aamin ma waayahay waxaa daris kula ah qof sidaadoo kale ah ii sheeg ma qof adiga ku eg ayaa daris kula ah oo xaafadda kula degan anigu ma garanayo abbaayo waxaan ahay qof shaqaysta isla markaana subaxii guriga ka baxa habeenkiina imaada mana kala garan karo aniga waxa ila degan oo ila eg shaqo ayuu ku leeyahay okay saaxiib halkan aad u jeedo waa gaariga qaybtiisa hore inta badan biyo lagulama hormaro busta uu leeyahay ayaa mara looga jira qaybtan waa lugihii
saqafadiisa ama qaybtiisa sare inta badanna dhiiqo ama waxyaabo badan ayaa ku dhadhaga qaybtaasna saaxiib waxaan ku dhaqaa sokor iyo shaambo aan isku daray asiga sidan ayuu hadlayaa qofkaasna sidaas ayuu u soo hadlay waayahay intaba ma aniga isku noqdo intaba aniga miyaa noqday ma aqaan waxaan dhahaa markaan dambe ma aqaan jawaabaa u celiyo noloshaydii maxaad iskula hadlaysaa waan ku baryayaa qofka aad la hadlayso waa gacaliyahaada hanad biliis ila hadal xaqiiqada jirta ee dhabta ah dhankaaga ii sheeg waan ku baryayaa soo xasuuso jaceylkii dhabta ah soo xasuuso ballamihii aynu kala galnay soo xasuuso farxaddii maxaa kugu dhacay xabiibtii waa intaas aniga intii dhaawacday hadalladiisa marba marka ka dambaysa wadnahayga ayuu taabanayaa hadalka ma kuu dhammaystiri karaa hadalka maxay tahay noloshan cusub ee soo wajahday maxay tahay meeshii aan ka sugayay gacalisadeeda si farxada inay igula sheekaysato maxay tahay gacalisadeedii aan jeclaa ee dunida dhan ayada ka soo xushay anigu la hadlayo ayay talka igu jartay halkee bay wax ka khaldan yihiin anigu ma garan karo dunidan ayada oo keliya ayaan ka jeclaaday isla markaana noloshaydoo idil farta ayaan ka saaray weliba ereyadii badana aan ugu celcelin jiray waxay ahayd i aamin ballan iyo cahdi iga qaad maxaa ku dhacay maxaa isbedelay maxaa khaldan halkee bay wax ka khaldan yihiin anigu ma garan karo anigu ilhaan waan jeclahay maxaa ku dhacay maxaa ka khaldan ma saddexeeye baa soo galay jacaylkeenna alla noloshuu dhib badanaa ilhaanay si dhab ah ayaan kuu jeclahay run ahaantii farxad waa wallaahi farxad tan ma indhahayga mase waa ninkii qofka xagga ku oynayo war wuu oynayaa wallaahi anay ii gashay yes ilaahow ka dhig in ilhaan ay soo wacday ay ku daadaadsatay in arrintii dhan ay farta ka saartay ilaahow ka dhig maanta waxaa ii muuqato waqtigii iga lumay rafaadkii aan galay inaan guul ka gaaray haddiiba hanad uu oynayo ma isdareensiinaya ani ilaan saaxiibo uga dhigtay wax badan aan isgarab taagnayn in daacad ayaan iskaga dhigaa si tartiibaan u xog waraysanaa bal waxa ka qaldan laakiin ooyintiis waa ii farxad laakiin ma dareensiinayo ilhaan madaxaa kor soo qaad saaxiib hanad maxaa kaa qaldan maanta ilhaan waan ku jeclahay si dhab ah ayaan kuu jeclahay run ahaantii waan ku baryayaa hay cidleen waan ku baryayaa noloshaydu idil farta ayaan kaa saaray hanad ila hadal saaxiib anaa ku kor taagan ilhaan ma ahi noloshaydii ilhaan waan ku baryayaa hay cidleen aniga qof i caawinayo ma ujeedi qof i caawinayo uma jeedi saaxiibkaygina uma jeeda asagana aniga farxad waqtigii aan sugayay miyaa waxaan laygu bedelayaa alla noloshu dhib badanaa aabbahaygii wuu iga xanuunsan yahay oo waxaa loo diray baadiyaha si uu ugu soo neexo walaashaydiina waa iska xaalkeeda meeshaan ka sugaayay ilhaan oo ku hashtay war ninkan wartan aniga waa farxaddeeda hanad saaxiib ila hadal hal mar hanad madaxaa kor soo qaad ila hadal waan ku baryayaa saaxiibkayga saalim hanad saaxiibka ayaan ahay ani weli saaxiib sida wuxuu jiraan ii sheeg waan ku caawinayaa ani ooyinkuuma ogeyn maanta dhibaatadan ku haysatay ii sheeg saaxiib maxaad caawisaa anigaba waxba magu ogibe meeshay wax ka jiraan iyo meeshay wax ka qaldayiin maba aqaanaba maya dhibaatadan ku soo wajaday aad la ooyeyso adoo jiifa aad u soo kacday halkan aad u soo fadhiisatay ii sheeg xaala markaa jiifanaysa si wanaagsanaa ku jiifatay aniga ilhaan ayaan jeclahay aniga laakiin waxaad moodaa saddexeeye inuuna soo galay saddexeeye anoo hore ii soo galay farxad waa walaatan ooyintan hore u soo arkay marka qof kastana wuu marayaa ani laakiin muhiimaddeedu waxay tahay ninkaa inuu soo dareemin markasta daacad ayaan u ahaanayaa asi hawsheedana waa wadanayaa hadda waxaan iska dhigaa nin asi la jilicsan waxaan iska dhigayaa nin asi u jilicsan waxaan la ciyaaraa shaxdii ahayd ee la ciyaar aan kaa badiyo
saaxiib hanad saaxiib waqtigan hadal ma jiro dhankayga hanad aniga waan kula murugoonayaa dhibka ku haystana waan u jeedaa hanad ila hadal saaxiib aniga ilhaan ayaan jeclahay ilhaan waad jeceshahay waan ogahay laakiin waxa ku haysta ii sheeg qalbigayga ayay degtay la'aanteedana noloshan iima ifayso haye maxaa idin soo kala dhexgal ii sheeg waxa idin hayo maxay yihiin oo aad la oynaysaan waan ku baryayaa ilhaan waan jeclahay ee ii soo celi saddexeeye ayaa soo weeraray haye saaxiib ooyinta jooji anaa xaggeeda u baxayo saaxiib saalim waan ku baryayaa aniga ilhaan ayaan si dhab ah u jeclahay ilhaan qalbigayga ayay degtay la'aanteedana noloshan iima ifayso waan ku baryayaa haddii aad saaxiibkayga tahay haddii aad i caawinaysid haddii aad garabkayga taagnaan jirtay maanta garab ayaan kaaga baahanahay ilhaan ayaan kaaga baahanahay inaad ii soo celiso wax khaldan iima aysan sheegin nambarkan way igu jartay anigoo la hadlayo waan ku baryayaa i caawi ii soo celiyo ku leeyahay aniga ii soo celiyay fahmo aniga ii soo celiyay waa layga watay ii soo celi kulaha inaan sii fogooyo mooye lagama yaabo inay mar kale kuu soo laabato wax badan waad sheegteen sarifka jaceylka iyo waxyaaba la mid ah laakiin sarifka jaceylku wuxuu isku bedelay sarifka khiyaanada waayahay saaxiibkayga saalim hadda su'aal ayaan ku weydiinayaa adigu ilhaan ma ii soo celinaysaa waan ku baryayaa ilhaan ma ii soo celinaysaa hadda oo adiga ma kuugu tashanayaa maadaama saaxiibkaygii aad tahay garabkaygii aad tahay qofka keliya ee aan saaxiibtinimada dhabtaan isla soo marnay maadaama aad tahay waan ku baryayaa ilhaan ma ii soo celinaysaa oo ma u sheegaysaa in aniga si dhab ahaan u jeclahay misena aanan ka maarmi karin saaxiib anaa kuu soo celinayo taa ha ka welwelin haddana keen madaxa ku xanuunaya waan kuu jeedaa dhibaato kale yaadna la kulmayna soo baxaan guriga ku geeye kaale ii siixan dhib kuuma rabo saaxiibkaaga ayaan ahay waan ogahay saalim dhibkayga inaad ka damqanayso laakiin mid ayaan kuu sheegayaa aniga ii sheeg aniga inta ilhaan aad iiga soo celinayso wax cuntaah ma cunayo joodarigana kama kacayo saaxiib sidaa ha dhihin nin rag iska dhig aniga haddii aan ogaan lahaa qofka idinku dhex jiro ee dhibkaan idinku samaynaya mar horaan aan aadi lahaa mar horaan gacanta kusoo dhigi lahaa aniga dhibkaaga ma ribi saaxiib waan ogahay inay dhibaatada murugta dhibkay leedaha waan ogahay marka ooyinta iska daa sidaana ha dhihin go-aanka ha qaadan soo baxad aan guriga ku geeyay okay saalim saaxiibka keliya ee ii damqanaya inaad tahay waad i dareensiinaysaa maanta abaalkaada waxaan ku gudo ma aqaano saaxiibkaygaa tayuu leeyahay eebonina waxoogahan cadaabin laqdabada iyo dhibaatada iyo ninka saddexeeyaha uu sheegayn aniga ama ogo laakiin aniga kuleelkan kuleelaa ka horreeyey saaxiib haddana keen aan gudaha ku geeyo waayahay laakiin ogow ilhaan inta ay iiga soo noqonayso anigu afkayga waxba ma saarayo wax ma cunayo aniga joodarigana kama kacayo waan ku baryaa haddii aad si dhabaha aad ii jeceshahay oo saaxiibtinimadan aad in badan aad ila garab taagneyd waan ku baryaa ilhaan ii soo celi haddii kale aniga joodariga ayaan isaga dhimanayaa islamarkaana waa la ii duugayaa jacayl darta saaxiib wax kasta way hagaagayaan bal hadda ina keen meel banaan aan joognaa dadkay nala yaabana soo bax seexo okay waayahay hayana keen halkaan iska seexo halkaan sii joog jawaab iga sug isla hadda anaan ku imaanayo jawaab iga sug anaa u laabanaya iyada ilhaan anaa aadayo waayahay khayr allaha kula soo kulansiiyo waxaana kaa rajaynayaa soo noqodkan labaad in waxaan ku farxo aad ii keeni doonto waayahay saalim waayahay saaxiib qaali ah haye saaxiib waan soo dadaalayaa toddobaadka malabka ayaan ku jiraa kolley aad bay igaga muuqataa sababta ay tahay farxad aanan heli jirin ayaan helayaa fikir aan laga fikiri jirin ayaa hadda laga fikirayaa sababta ay tahay waxyar kadib markaa guriga ka soo daaho message ayaa la ii soo dirayaa teleefon ayaa la ii soo diraa oo laleeyahay xaaji waad soo daahday intay iga jirta waan kuu xiisay oo laleeyahay si marxabeen guriga markaan tagana aad la ii soo dhaweynayo oo farxad helayo
xaqiiqatan nolol mugdi ayaan anigu ka soo baxay ma garan karo wax aan abaalkeeda ku gudo ma garan karo qof aan iyada la meel dhigo kulley nin ayaa halkan iga muuqanayo oo maalinkii arooska kulley dhibcaa laga qaadanay laga tirsanay annagoo in maalinkayga aan ka tirsada bal hoonkaan u yeeriyo gaariga ayaan ku agbaakimaya muxuu yahay gaarigan qofkan qof amoola ma wado qofkan wuxuu iga damacsan yahay gaariga u agbaakimtay muxuu yahay gaarigan qofkan gaariga u agbaakimtay muxuu iga damacsan yahay alla waa gaarigii fahma lagu watay alla waa gaarigii fahma lagu wato wallaahi asi waaye fahmaa saaran fahmo alla waa fahmo waa gaarigii fahma lagu wato abaaya fahmo anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safani xisbina weligay ma gelin xergaarana uma shaqayn waxaanahay weliya xora dadkaan xuulafaysinahay wargelin dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee jecel barashada mihnada saxaafadda waxaa lagu wargelinayaa in macadka tababarada saxaafadda ee Danan Training Center uu qaadanayo arday cusub kuwaasi oo isugu jira bilow dhexdhexaad iyo dhamaystir waxaana la bari doonaa ardaydaasi sameynta warka barnaamijyada sheekooyinka iyo qaybta farsamada sidoo kale macadku waxa uu qaadanayaa koorso 3 bil ah oo degdeg ahi taasi oo loo qaadanayo 40 arday haddaba wixii faahfaahin intaas dheer ama macluumaad waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada kala ah eber 66 eber 356 ama teleefanka kale eber 66 eber 357 haddaba balanteenu waa inaan hore u gaarnaa maxadka saxaafadda ee Danan Training Center dareenka xanuujiye iskooda shucuubta muda xurtoon iyagoo ahaa afkooduna uu xidhnaa anaa xayoo u nool waxaana wariya xoraa Danan Radio waxaad ka daalacan kartaa dulucda warka iyo kiisa dookaroon dadaal badan iyo darajo lagu dheehay Danan Radio fahmo ayuu ku qayla dhaaminayaa waraa fahmadaad ku qayla dhaaminayso maxay ahayd ii sheeg oo adiga ma wili hortaagan adiga ma xishoonaysid miyaa saaxiibo waan ku hortaagnaanayaa weli waan kusii hortaagnaanayaa iga hor dhaqaaq yaanan kugu jirin gaariga saaxiib danta ayga leedahay ii sheeg adi yaa ku soo diray ii sheeg danta aan kaa leeyahay waxay tahay fahmo aad ku waalatay in qalbigaagaan ka saaro aniga ma maqlaysaa fahmo nin ayay xaaskiisa tahay dambe haddii aan ka maqlo afkaaga waxaad ogaataa in ceel dheer aan adigu kugu ridayo weligaagana aadan ka soo bixi doonin hadda inaa awoodo ma og tahay in adiga gaariga aan ku saaro xitaa aan ku geliyo meesha eeyaha la geliyo kadibna ceel dheer adigu aan kugu dhex tuuro yaa kaa soo bixinaya ii sheeg ceelka haddii aan adiga kugu tuuro saaxiib afaa kuu duleela wax kastoo oran kartaa waxaa rabtana iska dhihi kartaa ani laakiin ilaa hadda kuma qasrin inaad guulaysatay fahma ani ay jeceshahay soo weydii adiba shut up waxaas looma baahno ma maqlaysaa fahmo saaxiib anigay xaaskayga tahay maantana gurigayga ayay joogtaa aniga hadda xilligan laakiin kuma jeclo riwaayaday kula jilaysaa saaxiib nin laga badiyey ayaad u muuqataa inaad tahay nin ciil hayana uma liidatid oo uma xumid kolley nin laga guulaystayna in aad tahay way ii muuqataa aniga waa runtiis ciil wuu ahayaa laakiin ani waddada hadda aan ku socdo ayaanba doonaya inaan ciilkayga ku soo arguto wax kastoo isoo marana waxaan aaminsanayn in hadda guusheeda aan wato qayb ka mid ah waa runtaa waa sax ciil wuu ahayaa laakiin waxaad ogaataa inaan guulka aan u socdo oo hadda aan qayb ka mid a gacanta ku hayo
saaxib horaa waxaa loo yiri nin daad qaad xunba xuskay taa waxaa loo yireen waxaa ahayd qofka mar haddii uu daad qaado xunbada qofka haddii uu cogsado ama uu sidaan dhaho waxba ma celiso sidaa la ajligeed waxaa ii muuqata in adiga mare abaal nolol ah aad ku nooshahay marka waxaan kuu sheegayaa dambe haddii aan ka maqlo afkaaga fahmadan aad had iyo jeer aad ku qeyla dhaaminayso fahmo waa xaaskayga waxaad ogaataa oo igu ballan ah in noloshaada dambe aad ka sheekayn doonto midaan adiga kugu dhigo nafsadaan ha isdhaafin fahmo dambe yaanan afkaaga ka maqlin waad mahadsantaa saaxib waana kaa aqbala hadalkaas maxaa yeelay guushaada ayaad gaartay hadafkii aad lahaydna waad gaartay laakiin waxaa noo ballan ah marka aana guusha aan raadinaya aan gaaro oo hadda qayb ka mid aan gacanta ku hayo waxaan oo kale waa la yasaa waana laga bartiireeyaa isagoo goobtiisa taagan muxuu ii sheegayaa aniga lagu dhaqaaqay laakiin gaarigan xasuus gaar ayuu ugu leeyahay laakiin ma fahmo qaybta dambe saaran tahay maadaama gaariga uu beensa lahaa waan u gacan haatinayaa fahmo abbaha ila hadal haddii aad gaariga saaran tahay fahmo iska baxay fahmo ila hadal fahmo ayuu ku jiraa waxaan nacaskan sug waan u laabanayaa alla wuu soo laabtay waa farxad kale fahmo ayaa soo celisay fahmo ayaa gaariga saaran waa ka riidayda baan ma naqanin lugta alla muxuu sidaan ka wadaa wasaq saaxiib rarbaaxshima haddana iigu sii dartay ka harsoo kuma dhihin magaca fahmo adiga hadda gaariga ma saaran tahay bis intaas ii sheeg ka har ayaan ku dhahay magaca fahmo dambena ayaan kaa maqlin fahmo magaceeda wuxuu ila adkaa hadda ma wadaa waaya intaa ii sheeg bis keliya itus hal mar wejigeeda lugtaada dib u fiiri dhiigga kaa socdo meelahaas isaga dhaq ha igaga halayn gaariga kana dunyadan saanay u adag tahay wax leela kulmaysaa dhib badan hadda waa kana laakiin dhaawaca yarka i gaaran waxaan isaga dhigay nin wax weyn gaarina isaga dhigay waa iska jafaan waxaan laakiin ninkan damiir xumadiis ayaan la yaabanahay asigoo sidaan ii galay xitaa ima dhahayo soo baxaan isbitaal ku sii geeye damiir xumaa kan biniaadan miyuusan ahayn laakiin ani hadafka aan leeyahay wax kasta iga muhiimsan hore ayaan u idhi xitaa haddii candhuufi ku tuftay xitaa waan iska tirayaa gaari jug i siiyey wax dhiba ila ma laha xitaa hadda asiga jug ayuu igu siiyey oo keliya xitaa haddii uu dardarsiiyo igu soo celiyo haddana igu celiyo jabyar oo iga soo haray xitaa inta yar iga soo harta haddiiba aan hadli karin intaa ayaan ku argudanayaani hadafka aan leeyahay iyo dhibkii la i gaarsiiyey sidaan horumarkiisa u gaari lahaa ayaa danteedu i tahay muhiimaddu waa inaan guusheeda gaaraa waana sii dhaqaaqayaa waxaynarkana waa iska dhaqayaa wax weyn sidaa weyn ma aha tanana ayay farxad ayay ii tahay guushiida ayayna qayb ka tahay xitaa haddii ilhana i weydiiso oo sidaan maxaa kugu dhacay dhahdo isaga la dush u saaraani isagoo gaariga dhaqaya ayuu marsho geliyey asaana sidaan ii gala ayaan leeyahay wax sidaa weyn ma aha muhiimaddu waa inaan dhaqaajiyaa oo aan iyada u aadaa banaanka ayay fadhiisaa maanta aniga ayay isugaysa ayaan u malaynayaa waan u tagayaa siday wuxu jiran ayaan u sheegayaa waxaan banaan ku soo haday waxay tahay inaan xoogaa nafis helo inaan leersado sababtoo ah waan kurboonayaa kurba zaa'id ayaa heeso hay
soo kaas saalimkii maaha saalimka ayaa soo socdo oo ma badaalaya maxay tahay haddana man kurbo kaloo ii wadaa waan arkayaa goortii hoosteeda yimaado ama waa inaan aniga ka horgeeya sababtoo ah waxaan rabaa wixii oo dhan inay been noqdaan inkaas aniga hanad ma hilmaami karo saalim bal waa soo socotaa qeyr ii sheeg haa waan ogahay weli waxaad iga sugaysaa inaan ku siiyo xog ku saabsan saaxiibkayga adigana ah jaceylkaaga taana waa tan aan ka shaqaynaya aniga muhiimaddeedu waa inaan horumarkaa ka shaqeeyaa xogna waan ku wadaa hadda asi ku saabsan mar ayaad xog dhammaystiran ii keentay maxay tahay haddana xogtan cusub aad ii wado ii sheeg fiiri jilibkayga inta maxaad uga jeedaa alla dhiig ayaa kaa socdo dhiiggan xoogaa ka hor iyo sidaan ii galay gaari waaye wax kalena ma aha gaariga isla asiga ayaa waday hanad miyaa waxaan kugu dhuftay haa waxaan ugu tagay halka oo gawaarida ku dhaqo isagoo gaari baroobeynaya ee marsho gelinaya ayuu sidaan iigu yeelay suurtagal maaha waxaa idinka qaldan labadiina waxaa idinka dhexeeya cadaabadda ayaan fahmi lahayba aniga saalim waxaan kaloo aan kuu sheegayaa hadda asigu waa uu jiifaa waxyaabo badan oo adig ku saabsan iyo arrimahaagana waa uu ii soo dhiibo adig ku wadaa okay ii sheeg ani hadda asi ayaan ka socdaa wuxuuna ii yiri oo igu soo yiri iyadaan la sii soconaa saaxiibaan iskala ahaanaa lacagtaan iskaga daldalanaa wuxuu kaloo sheegayay asxaabta iyo kuwa gawaarina asan dhan ugu faanaa inaan gabar cad aan jecelahay lacagteedana aan ka aruursanayo marka adi taa ma mudan tahay gabar saan u qurxoonaa tahay inuu sidaa u dhaqmo uu dadka waxaas ugu sheekeeyo hadda ani warkaas igu soo yiri taa ma mudnidullah laakiin ani waan ka xumaa waxyaaba uu ku dhaqaaqay mar horena kaala taliya ninkaan isaga har allah mahanadaa sidaas dhahay haa si ayaa ku dhahay macquul maaha midaas macquulna ma noqonayso run ii sheeg waa ku baryayaa xitaa ku darso wuxuu kaloo isoo dhahay arrimahayga dhan aan leeyahay waaye danaysi ayay iga tahay arrintan aniga sidaan maka filanayn hanad sidaan kama filanayn run ahaantii kama filanayn sida hanad wuxuu sameynayaa sida aniga sidaan hanad kama filanayn been ayaad ii sheegaysaa soo maaha ani tan farxaddeeda waaye asi waan ka soo taga soo ooynaya sariirtan kusoo hubsaday iyadana waa tan maanta guriga xitaa ma jiifto bannaankay fadhidaa ilaan hadda ani waan kaa sii tegaa mar kale ayaan kuu soo laaban doonaa haddii aan caddayn kuu keenay oo haddii aan caddayn kuu keenay oo muujinayso inuu ninkaa shaqadiisa iyo been uu kuu sheegayay mar kalena aan kaaga soo qaaday xog kale oo ku saabsan waxyaabaha uu kaa damacsan yahay iyo danta uu kaa leeyahay mar saddexaad ayaan kuu soo laaban doonaa anina muhiimaddeedu waxay tahay inaan hadafkaaga iyo godkan mugdiga aad ku socota aan kaa celiyo waxaan geed gaaban iyo geed dheer baan u fuulayaa sida aan guushaada adiga aan kaala talin lahaa jaceylkaan camoolaha ee aad wadaanna aan u joojin lahaa weli wuxuu ku siiyey indhadagaa inuu hanad caddayn saddexaad uu igu keeno ma caddayn kale ayaa ii dhiman laakiin waa inaan hadalkiisa qaataa wax walba sida noqdan ayaa arkaya okay adiga ayaan kaa warsugayaa adiga ayaan kaa warsugayaa okay iska sii bax haddana haye waad mahadsan tahay adina guulaan kuu rajeynaa wuxuu u soo laabanaya saalim ma yaro saalim nolosha hanad ayaaba la daba dhigaa siga run ahaantii ma yar wuxuu u soo laabanaya wuxuu i leeyahay mugda ayaad ku sii socotaa wuxuu i leeyahay bohol ayaad ku dhacaysaa war waxaan rabaa inaan boholkaas kaa bixiyo hanad miya aniga bohol ii quura mise inuu nolosheeda ka been abuurto sidaan ma kaa filayn haddiiba wax lagaa sheegaya dhab yihiin ma kaa filayn sidaan laakiin waa inaan runta ogaadaa aniga dhegaystayaal intaasna waxaan kusoo gabagabaynayaa qaybtii 17aad ee sheekadii la magac baxday alla maxaan cadowgii jacaylkayga gacantaydii ku barbaashay sheekadan waxaa hal abuurkeeda iska leh yuusuf maxamed axmed saxafiyare
isku dabaridka iyo qaabeynta sheekadan waa saaxiibkay liibaan cabdi cali. inta aanu ku kulmayno qaybaha kale sheekada waa abahdii oo isku duuban idinku dhaafaysa sidaas iyo ma dhaafno.